maalmihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada ay Soomaalidu ka wada xiriirto aad loogu hadal hayay ciidamada booliiska dawladda federaalka ee Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee Haram Cad loo yaqaano kuwaas oo sawiradooda ay qabsadeen baraha bulshada. dad badan ayaa baraha bulshada aad u wareejinayay sawirada xayawaanka Haram Cadka iyo ciidanka dawladda ee magacaasi loogu daray. ciidanka ayaa ka qayb qaatay howlgal dawladdu ay ka fulisay xarunta ururka Ahlus Sunna ee magaalada Dhuusamareeb kadib dagaal ka dhacay magaaladaas. ciidanka Haram Cad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidankii la geeyay magaalada Baydhabo xilliga doorashada Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale loo daabulay qayb ka mid ah gobolka Gedo. Haram Cad kuna ku sii dhowdaa marka Haram Cad bisni soo celi kartaa amisan aniga wadanka Soomaaliya laakiin waxa la rabaa fikir wanaagsan oo midayna Soomaaliya halkana siday ihtiyaaji var shacabka Soomaaliya idinka maanta idin baahan yihiin sizler Soomaaliya halkının kahramanları olacaksınız waxaa noqon doontiin geesiyada Soomaaliya haddaba maxay ciidanka Haram Cad oo ka tirsan booliiska dawladda Soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukun ka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ciidan si gaar ah loogu tababaray ka hortagga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka. ciidankan oo tir ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dawladda Turkiga oo gudaha dalkeeda u qaata halka qaarna ay tababarka ku qaataan xerada Turkisom ee Muqdisho. inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud waxaana ay u carbisan yihiin shiishka iyo howlgallada qorshaysan. tuutaha ay wataan askarta Haram Cad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliiska waxaana intooda badan ay hore uga tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda ee NISA sida uu BBC-da u sheegay Cabdisalaam Guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee hay'addaasi. waxa uu yiri ciidamadan waxa ay intooda badan ka mid ahaayeen askartii NISA ee hubka sitay balse dawladda hadda jirta ayaa u bedeshay booliiska sida gaarka ah u tababaran. waxa ay u badan tahay in magacooda Haram Cad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee NISA. Cabdisalaam waxa uu sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidamada Haram Cad ay niyad jab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiyay tababarka iyo tayeyntoodaba. ciidamadan oo waayihii dambe soo shacab ahay ayay dad badan dawladda ku dhaliileen in ay u adeegsato dano siyaasadeed. xuduudda ciidamadanna loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dawladda Soomaaliya iyadoo loo tababaray ciidamada isla markaana xaq u leh halka ay geynayso iyo qaabka ay u howlgelinayso balse waxaa su'aal la gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dano siyaasadeed oo laga weeciyo dagaalka Al-Shabaab. taasi waxa ay keeni kartaa in laga guul gaari waayo dadaalka loogu jiro in cunaqabataynta hubka laga qaado Soomaaliya.